waan idin salaamay walaalayaal dhamaantiin waa mar kale walaalkeen Xuseen oo idin wada video aad u muhiim ah oo wax badan ka faa'iidi doontiin videoga waxaan uga hadli doonaa cuntooyinka jirkaaga u wanaagsan oo laga doonayo inaad cuntid kii la soo dhaafay waxaan uga hadalnay cuntooyinka ku xun oo lagu taliyo inaad iska dhaaftid si aad caafimaadkaaga u wanaajisid cudurradana isaga ilaalisid videoga waxaan rabaa inaan uga hadlo cuntooyinka ku wanaagsan cuntooyinka horta waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood qaybta vitaminada iyo mineralska oo loo yaqaan micronutrientska kuwaas waxaan uga hadli doonaa video kale waxaan rabaa inaan ka hadlo macronutrientska waxa loo yaqaan ama cuntooyinka waxyaabo fara badan cuntooyinkaas jirka la siiyo micronutrientska jirka wuxuu u baahan yahay wax yariis ah oo hadduu waayana dhibaato ku imaanaysa haddii kalena wax yar ayuu u baahan yahay waana ku filan tahay macronutrientska sidoo kale jirku wuxuu u baahan yahay wax fara badan waa sida cuntooyinka aan cunno badan oo saxan dhan u buuxa damsiinaysa waxaas macronutrientska loo yaqaan macronutrientska marka kuwaas waxa loo kala qaybiyaa saddex qaybood qaybta koowaad waxa loo yaqaan carbohydrates ama carbs ayaa loo yaqaan in short marka carbska xagee ka heli kartaa maxay tahay cuntooyinka xagee ka heli kartaa carbs healthy ah waxaad ka heli kartaa qudaarta waxaad ka heli kartaa fruitska ama miraha waxaad sidoo kale xasuusnaataa miraha markii la shiido oo laga dhigo juice ma ay la mid aha markii ayagu caadi mirta aad cuntid maxaa yeelay juice-ka markii laga dhigo sonkor ayaa lagu daraa inkastoo waxayna laga bixiyaa maado aad u muhiim ah oo loo yaqaan fiber-ka marka waxa laga doonayaa qudaarta inaad sideeda u cuntid iyo miraha ama fruitskana aad sidooda u cuntid oodan cabin kuwa la soo seecalay oo bacaha iyo ku jira haddii aan sii wadano waxa kale oo ka heli kartaa carbska brown rice-ku uu ku fiican yahay waxa kamid ah batatada bahasha loo yaqaan sidoo kale waxay leedahay carbs fiican laakiin waxa iska ilaalisaa markii chips laga dhigo ama fries laga dhigo bahashaas markii saas laga dhigo way xumaanaysaa sidoo kale waxa aad ka heli kartaa whole grainska cuntooyinka loo yaqaan sida misagadii digirtii iyo oatska sidoo kale waxay leeyihiin carbs healthy ayaad ka heli kartaa intaas kaliya oo ma ahan sidoo kale kuwa fara badan ayaa jira waad fiirin kartaa adiga ayaa laga doonayaa inaad raadisid qaybta labaad oo ka hadal rabo waa proteinka waa midka ugu muhiimsan jirka bani'aadamka proteinka jirku wuxuu u isticmaalaa si uu murqaha u dhiso u dayactiro haddii dhaawac soo gaaray si uu timaha u baxaan iyo waxyaabo kale fara badan proteinka waxaad ka heli kartaa mid healthy ah waxaad ka heli kartaa sida samakigi ama fishki waxaad ka heli kartaa hilibkii ukuntii waliba sidoo kale waxaad ka heli kartaa digirta waxaad ka heli kartaa nutiska sida lowska iyo waxyaabaha lamida sidoo kale protein ayaa ku badan marka proteinka waxa laga doonayaa inaad sidoo kale cuntid kana aadna cuntid proteinka midka caafimaad kale qaybta saddexaad oo rabo inaan kuu sheego waa qaybta fatska loo yaqaan sidoo kale jirku wuxuu isticmaalaa si uu sameeyo energy laakiin sida labadii la soo dhaafay muhiim aad ma ahan laakiin jirku waa u baahan yahay sidoo kale waxa laga doonayaa inaad ka cuntid wax yar oo aad u fara badnayn fats oo healthy waxaad ka heli kartaa ukunta waxaad ka heli kartaa hilibka sida midka lo'da oo kale waxa ku jira fats ayuu leeyahay sidoo kale waxaad ka heli kartaa fats healthy avocado bahasha loo yaqaan waxaad ka heli kartaa nutska sida lowska iyo waxyaabaha la mid sidoo kale waxa ku jira fats muhiim ah oo healthy ah marka laakiin ha iska badin wax yar ka cun maxaa yeelay fatska waxa ku badan calorieska haddii aad wax badan kuwaas ka cuntid si dhakhsiya waxa ku fuulaya baruurta waa mahadsantiin videoga la soo dhaafay waxa soo socda waxyaabo kale oo muhiim ah sida vitaminska aan uga hadli doonaa waa mahadsantiin dhamaantiin